waxgaradka degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud iyo guddiga dib u heshiisiinta ee loogu talagalay qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta ee dhawaan ka furmi doona magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxay maanta kulan ku yeesheen magaalada Cadaado. wararka halka ay naga soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in kulankoodu oo ahaa mid xasaasi ah isla markaana ay ka qayb galeen dhammaan odayaasha ugu caansan waxgaradka iyo dadka kale ee ku nool magaalada Cadaado. sidoo kale inta badan xubnaha guddiga oo ay hore u magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa shirka xaadir ku ahaa. kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa lagu gorfeeyay caqabadaha iyo tabashooyinka ay dadka reer Cadaado muujinayaan. waxaana waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee dadka reer Cadaado ay miiska soo saareen ka mid ahaa shuruudo adag oo guddiga la hordhigay, taasi oo guddiga ay markaasi ka goos adeegeen in ay fulinteeda awood u leeyihiin ama ay u ballan qaadi karaan in ay fulinayaan. dadka reer Cadaado ayaa guddiga markaasi u soo bandhigay oo miiska u soo saaray shuruudo ah in marka hore ay u baahan yihiin inay helaan Cadaado oo ah xarunta baarlamaanka Galmudug isla markaana martigelisa doorashada iyo shirka dib u heshiisiinta. haddii aysan intaa u hayna ay markaasi iska laabtaan. guddiga ayaa isku dayay in dadka reer Cadaado iyo waxgaradkooda ay wax ka dhacayaan, laakiin waxa la sheegay in aysan u suuragelin isla markaana ay diideen inay ka qayb galaan shirka dib u heshiisiinta ee 5 bisha soo aadan ka furmi doona magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. wararku waxa ay inta ku darayaan in guddiga oo bila natiijo ay dib uga soo laabanaya Cadaado isla markaana ay ku soo wajahan yihiin magaalada Dhuusamareeb. guddiga dib u heshiisiinta Galmudug ayaa hore waxay u tageen magaalooyin ay kamid yihiin Guraceel, Caabudwaaq, Balanballe, Hurshe, magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Cadaado. waxaana dhammaan ay uga gol lahaayeen in dadka kala duwan meelahaas ku kala nool reer Galmudug ah in ay ogoladaan in shirka dib u heshiisiinta ee Dhuusamareeb gogashiisu ay taallo, ra'iisul wasaaruhuna ay iclaamiyay ay ka soo qayb galaan. arrinta Galmudug ayaa aad u murugsan, waxaana la sheegayaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo markiisii horeba halhays uu ahaa in Galmudug dhammays ah la dhiso uu haatan ka sii quusanayo sida ay wax u socdaan.